maalin ayaa anigoo xafiiskayga fadhiya waxaa iigu yimaadeen agaasime sayid iyo kaamil waxaana igu soo xiray oo runtii u baahan in meesha laga sheego niman saaxiibanahoo la yidhaahdo Ibrahim Bafo ujeeddadan waxay ahayd in la qabto bandhigan gaadiidka oo ahaa midkii ugu horreeyay qofkii markaa jooga laba nin oo dhalinyaro ah oo iska socoto ku timid oo tiri waxaan rabnaa wax sida u weyn inaan qabanno oo ah midkii koowaad ee waddanka lagu qabto lama qiyaasi karo wixii ka soo baxayana laakiin runtii waxaa caddayd in dhalinyaradaas ay arkayeen maanta xafladani sida ay u ekaan doonto marka runtii aad ayaan ugu dhiirigelinayaa aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradaas sharafta leh ee arrintani aad uga soo shaqeysay gaadiidka marka la yiraahdo bandhigan oo kale waxaa qabta wadamada lacagta leh Dubai iyo Toronto Auto Show waa show caan ah Dubai sidoo kale Soomaaliya lagama filaynin inay qabanayso bandhig sidan oo kale ah wadamo aanan taariikhdeena garanaynin ayaa runtii u haysta inaan istaahilno oo keliya baabuurta la soo isticmaalay in waddankeena la keeno shirkadda dahabshiil runtii waan u mahadcelinayaa shirkado kale oo badanna waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan sida aad arkaysiin waxaa yaala baabuurta cusub markii la yiraahdo anaga wasaaradda gaadiidka ahaan waxaana loo keenaa baabuurta taargooyinkooda iyo laysankiyaana laga qaataa markii la keena gaari cusub waa gaari la soo isticmaalay intaasoo sano soo socday laakiin hadda waddankeena waxaa lagu iibinayaa gaari aanan weligiis la dhaqaajinno gacanta ugu horreysay ee wadan doonta uu yahay qof Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku nool marka horumarka waxaa laga yaabaa inaad ka raadinaysiin meelo kale laakiin taasi waxay ku tusaysaa horumar haddaad aragto baabuurta xamuulka ee waddankeena joogo haddii aad aragto baabuurta qaarkood oo waddanka socdo dadku waxay u qaadanayaan in waddanku weli uu meel fog marayo waddanku isbeddel ayaa ku dhacay dhaqaaluhu wuu kobcay maanta waxaan maraynaa xilli qof xamar joogo gaari aanan ahayn gaari ganacsi oo gaari lagu socdaa laga fikirayo in lacag aad u badan lagu iibsado waana dhacaysaa hadda waad aragtiin mar labaad mar saddexaad shirkadaha ganacsiga ah ee waddanka horumarkiisa aad uga shaqeeyo sida shirkadaasi dahabshiil iyo kuwa la midka ah waan u mahadcelinaynaa dhalinyarada isu soo abaabushay intan hadda aad arkaysiin samaysay bahda saxaafadda dhammaantood iyagana way mahadsan yihiin sidaad la socotiin halkan isla hoolkan waxaan ku qabanay shirkii dalxiiska iyo socdaalka ayaan isagana ku qabanay shirkaasi waxyaabaha uu ka tegay waxaa ka mid ahaa haldhigga halkaa ku dhigan aan aragno dhinaca kale ee Soomaaliya ganacsato ka socota wadamo kale Soomaaliya interest ku ah in ay ganacsi ka sameeyaan ayaan habeen dhaxdaasi la kulmay intaanan ganacsatada la kulmin waxaan la kulmay dad Soomaaliya ka soo shaqeeyay oo ajnabi ayagana waxyaabaha igu yiraahdeen waxaa ka mid ahaa warka waxaan ka maqalnaa qarax iyo dhibaato marka waxaan ka codsanaynaa dadkani dhinaca kale ee Soomaaliya ooga sheekay marka aragto innaga waan u sheegnaa laakiin adiga ha ka maqlaan marka eventska sidan oo kale ah marka aan qabanno marka aan soo bandhigno baabuur cusub dad Soomaaliyeed ay u iibsanayaan inay ku socdaan iyo horumarinta gaadiidka iyo shirkadihii sameyn lahaa gaadiidkaas oo service gareyn lahaa oo qalab casri ah wato iyagana oo aanan ka duwanayn qalabka wadamada kale ee baabuurtooda lagu sameeyo casriga ah waddankeena wax badan ayay u soo jiidaysaa sida aad la socotiin hadda halkaa waxaan ku arkay gabar Soomaaliyeed oo gaari wadato oo maraysi jid laami oo qurux badan hadda labada jid ee la dhisayo ee magaalada
jowhar iyo ku xiri doona hadduu ilaahay ka raali noqdo afgooye kuwaasi way ka qurxanaan doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo waa la dhammaystiri doonaa kuwa jidadka magaalada gudaheeda ana sidoo kale waa la dhammaystiri doonaa insha Allah tacaala deen cafiska marka uu dhamaado marka insha Allah tacaala aydan waxaan rajaynaynaa jidadka isku xiri lahaa wadanka gudihiisa idil iyagana dhismahooda waa la geli doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aniga 3 sano ee aan joogay hadda wadanka inta ku soo laabtay waxaan arkay isbedel badan isbedelkana inta aan arkay badi waxa hogaamiso dawladda kaliya ma dhalinyarada ayaa hogaamisay inta aan arkay dhinaca waxbarasho dhinaca waxqabad dhinac kasta marka insha Allah tacaala dhalinyaradana waxaan rajaynayaa waa jiilkina bedeli lahaa wax qabadka hadda aan aragnay inay sii laabaan hadduu ilaahay ka raali noqdo waad mahadsantihiin thank you aad baa mahadsantihiin